Asalaamu calaykum asxaabteyda soo dhawaada. Maanta waxaan sameysanaynaa buskud. Waxaan soo qaadanay 2 xabo oo ukun ah. Si fiican ayaan isugu labnay. Waxaan kaloo ku soo darsanaynaa bakeeriga haafkiisa oo sokor ah. Sokorta ay isticmaalayo waa sokorta budada, castor sugar ama powder sugar. Sokorta kale caadigana waa isticmaali kartaa. Sokortan guriga aniga ku samaystay. Adiga haddii aad jecleysatayna supermarket-yada laga helaa. Si fiican isugu labaaya sokortii iyo ukuntii si ay isku dhaxgalaan. Sokorta kale hadaa haysatid oo caadiga oo lagu darsado shaaha si fiican u lab si ay kuskuskeedu u baaba'o ama ay u melmato. Waxaa kaloo ku soo darsanayaa 2 qaado weyn oo saliid ah. Saliid iyo subag waxa ay haysatid waa ku darsan kartaa ama buuro inta dhalaaliso 2 qaado ayaa qiyaasanaysa ka badan maya 2 qaado oo waaweyn ah. Sidoo kale waxaa ku soo darsanayaa food color-ka ama midabka cuntada nooca oranjada oo bariiska lagu kalareeyo ama lagu qurxiyo oo far iyo suul camal ah ayaan soo cabirtay. Waxaan rabaa midab yar inuu yeelo. Waa muhiim in lagu daro buskudkan markii la sameynayo. Sidoo kale dhinaca kale waxaa yaalo 1 bakeeri oo bur ah. 1 bakeeri burka ah waxaa ku soo darsanayaa qaado haafkeeda oo vanilla ama carfisa ah. Sidoo kale waxaa ku soo darsanayaa baking powder oo isagana ah qaado haafkeeda. Bakinka lagama badinaayo, carfisadana lagama badinaayo. Qiyaasta sida ay tahay mar walba aan la socono insha Allah. Si fiican isugu labaysaa qaybtan qaleelka ah. Markii aan si fiican isugu labno, ukuntii iyo sokortii oo isu kaaya qasnaa ayaan si tartiib ah ugu labaneynaa. Ha sameynin hal mar inaad ku wada darsato burka, ukuntii iyo hadii kale adayg uu ka noqonaya ma qasi kartid ama kuskus uu ka yeelanaya. Marka si tartiib ah sida aniga aan yeelayo kala hadda ayaa sameynaysa marba marka ka dambeysana waxaa kugu sii adkaanaya qasitaankiisa adna waxaa laga rabaa xoogaaga inaad isticmaashid si ay si fiican isugu ka dhaxgalaan burka iyo ukunta iyo wixii kale isku qasnaay. Saas aad ku soo dhameysanay way u jeedin oo noo dhamaadabo. Mar lagu daray caano si kasta kaaga adkaada caano iyo biyaha isku daynina ku dirtid. Saana la rabaa way u jeedin kaamirada ma jarin si ay u ogaatiin sida ugu dambeyn uu ku soo baxayo iyo waxa aan ku daray iyo qaabka aan sameynayo si ay u ogaatiin. Marka waa noo diyaarsan yahay. Haddana waxaan sameynaynaa waa hagaagsaneynaa meeshii aan ku dubi lahayn ayaan sameysanaynaa. Waxaa soo qaadanayaa weelkii oo aan ku dubi lahay laakiin waxaa marsanayaa buuro ama burbaan ayaa marsanayaa bedelkeeda saliid iyo bur isticmaal. Waxaa sameynaynaa marka qaadada yar ama qaadada weyn mid doonta ha ahaatee afkeeda ku soo qaadaysa qaada kale isaga fujinaysa buskudka ma ahan mid si dheer loo sameynayo si wareeg mid loo sameynayo mid lagu sameynayo makiinadaha lagu sameeyo buskudka ma ahan buskud iska fudud waa casriyihiin oo kale 30 daqiiqo ka soo tuur bas maalin kasta doonto waa sameysan kartaa wax weyn ma ahan wax badan ma ka qaadanayo ama hal maalin wax badan inta sameysatid kiskis meel u dhigo xaajiga iyo ilmaha iyo filki iyo waxa waaye kiskis ugu soo bixi hadaa doontidna maalin walba sameyso mushkila ma lahan qaadada sida aan sameynayo afkeeda hore ku soo qaadaa waa isku jeednaa si tartiib ah ayaa waxa ugu fujinaynaa qaado kale ma hana qaaqaabeen hana kuskuusin qaabkaas hadii uu ku dhibaayo oo qaadada ah qaabkan kale ta samee gacantaada qoynaysa kis yara soo qaadanay saas taawada u saaraysa waa isku jeednaa oo maleynaya qaybtii oo aan ku sameeyay qaadada ee qaybtan aan gacanta ku sameynayo buskudka waa isku mid waa u jeedin markii iyada dhan saas ku soo dhameysanaya buskudka iyo wax walba la dubinayo kaliya ma ahan foorno inaa haysato waa aragteen anoo soo gelinayo muuqaal aan ku sameeyay biidsaha anoo sameynayo inkastoo kuukarkaan idin soo duubin waxaa kale aragteen anoo ku sameynayo doolsho burjiko caadi ah sida ay ku soo baxdeen waa aragteen marka ha dhihin waxaas aniga ma heli kari laakiin waa u baahanahay inaan sameeyo ha dhihin naftaada dhiirigeli wax walba oo haysato waa ku sameysan kartaa ani insha Allah waxaa ku dadaalayaa inaan idin soo geliyo di Ilaahay idmo si kastana ugu dadaalo qaab walba oo u sameysan lahaydeen
إن taawada ani iima wada deeqdo buskudka wax kala ii haray taawo kale inta ku duwanaya laakiin tan waxa idin tusaaya bas sida la yeelayo saasaan ku soo dhameysanaynaa space na u yeel ama meel banaan u yeel laba xabo kasta oo buskud ah meel oo yani ay ku kala nafisaan u yeel hoosta iska gelgelin saas inoo u dhamaatay ani waxa ku duwanayaa kuukar waxaan soo qaata taawo waxaan saaray taawadii buskudka ilaa waxaan diidayaa dabka inuu si toos iiga aado taawada marka wuxuu ii soo saarnay 25 daqiiqo saas uu nagu soo baxay waxa rajeenayaa inaan ka hesho buskudka kori hoos inuu ka bislaado ma la rabo qaabkaas oo nagu soo baxay waana ka heshay saarjeenayo waxaan ku leeyahay soo dhawaad walaal muuqaalka xiga inta ku kulmi doono wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh